fadlan haddaan ugu cusubtaan ugu soo bir YouTube subscribe noo saar page ka follow dhe muuqaalka dad kashna like saar shartaad way noo muhiim saaxiibada u share si aan u helo saaxiibo adiga oo kala ah maxsanid ku soo dhawo muuqaalkani maanta Las Anod shaashadaha adduunka oo dhan waxa ay isha ku wada hayaan Las Anod wax ka socda xaaladda ka taagan Las Anod ma ahan mid la qiyaasi karo waxa la dhihi karaa dagaal u dhaxeeya shacab iyo dawlad kadib bananbaxyo isku bedelay dagaal fool ah kaasi u dhaxeeya shacabka iyo ciidanka Somaliland inta la xaqiijiyay waxa ku geeriyooday in ka badan 3 ruux dhaawacna waxa la sheegay in ay ku dhawaad 20 waxa ka hadlay qaar kamid ah madaxda dalka iyo qaar kamid ah safaaradaha u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxa si kulul uga hadlay madaxweynaha Puntland Siciid Dani iyo qaar kamid ah dhalinyarada ka soo jeedo Sool laakiin dhibaatada meesha ka socda way ka weyn tahay kaliya dadka ka soo jeeda Sool Las Anod waxa si buuxda gacanta ku haya maamulka Somaliland waxa lagu baaqay in Somaliland ay ka baxdo ama ciidamadeeda ay ka saarto Las Anod meelaha qaar waxa lagu arkaya ciidamada qaybaheeda kala duwan ee Somaliland ay rasaas xoogan ku ridaya qaar kamid ah shacabka bananbax ka dhigaya Las Anod